ciidanka booliska gobolka Awdal ayaa maanta saldhigga dhexe magaalada Boorama ku soo bandhigay khamri, saafaf iyo waliba sameecado aad u tiro badan oo ay ku soo qabqabteen howlgal ay sameeyeen ciidanka booliska gobolka Awdal. waxaana goobjoog ahaa goobta lagu soo bandhigay taliyaha booliska qaybta gobolka Awdal, duqa degmada Boorama, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal, culimooyin, salaadiin iyo waliba saraakiil kala duwan oo ka tirsan ciidanka booliska Somaliland. haddaba mas'uuliyiintan kala duwan oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen wiiganba howlgalkii aanu ku jirnay taliyaha qaybta oo nagu hogaaminayay waxaanu ku soo qabanay waxaan hortiina yaala oo bulshada reer Boorame iyo barbaarta dhalinyarada iyo cid walba u xun ayaanu ku soo qabanay howlgalka iyo ku dhiiranaanta iyo ku dhaca aanu ku fulinay waxaan hortiina yaala waxa iska leh taliyaha qaybta Awdal oo nagu dhiiriyay boolis ahaan anigoo howlgalkiisii qaybta ugu dhiiriyay sidaanu howlgalno oo bulshada Boorame aanu kala shaqeyno wax allaale wixii xun ee darooga ee sakrada ee dadka xun ee dhaqan xumayska sidii aanu soo qaban lahayn bulshada aanu uga dhex qaban lahayn juhdi fara badan iyo dadaal fara badan kadib waxa ka soo baxay inaan soo qabanno maalmahan u dambeeyay khamrigan hortiina yaala oo tiradiisu dhantahay 1000 xabarood oo khamriya waa kow iyo midiyaha iyo saafafka kooxaha magaalada rabshadaha ku hayaay ay ku howlgalaan ee isku laayaan ama dadka ku baadhaan ee moobilada iyo jeebabka ay ku baadhaan oo ku halkaas 110 xaba waxa kale oo ciidanku soo qabtay makarafoonada sameecadaha halka yaala sameecadaha waxa lagu xidhaa bijaajada laguma ma ixtiraamaan isbitaal hadii ay joogan oo bukaan iyo dad dhaawac ay dhex joogan kuma ixtiraamaan masaajida iyo cibaadada Ilaahay iyadoo jumcaha masaajida lagu joogo kuma ixtiraamaan oo hareeraha intay ka galaan bay waxa ku shidaan ama waxaanu sheegaynaa kuwa wali gacanta kula si jira waxa inaana sida gacanta booliska uga fagan doonin halkay doonaan joogaan rag badan oo mudakar oo qurux badan oo dadku marka hadhow meesha la keeno dadku ay yaabi doonaanna oo gacanta kula jirana waxaan fariin u dirayaa maanta wax kastaba sheegta sawir kastaba lahaado nooc kastaba lahaado in gacanta mar dhow oo fogeyn ciidanka booliska soo dhigi doono daraadka khamriga leh wax walba leh ad soo qabateen waxaad ku daba jirtaanba waa nagu tagarsanay halaaga midiyaha iyo saafafka la isla dhacay ee wanaagsan soo qabateen waa nagu taageersanay bijaajta waad moodo marka qofku fuulo wata markuu fuulo inuu miyir beelo haddaan hay bulshada waxaan ballan qaadaynaa inaan gacmahayni noqono inaan cududiini noqono inaan waxa iyaga inagu garab galno in haddaan waayeelnahay haddaan shacbinahay baa wixii aan aragno ama aan maqallo inaan booliska keeno u mahadnaqaynaa ciidankaas waxaan soo qabtay maanta waan idinku garab taaganahay hawsha aad qabateen gacan iyo taageeriyo taakula waan idinku siinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo ma jiraynin oo waxa jiraysay oo anagu soo gaarnay iyadoo la yiraahdo hebel khamriila la yiraahdo qof baa xabad la yiraahdo qofkaas magac u leeyahay oo dadka uu ka takooday maanta la bulshada halkay mariso waa idinka arkaya baabuur baa lagu soo qaadaya dhan walba waa laga soo gelinayaa tuulooyinka hareerahayna baa laga soo qaadaya marka waxaan leenahay ciidanka booliska horta waan aad baan ugu mahadnaqaynaa hawsha ay galeen shacabigana waxaan leenahay shacbiga hore la shaqeeyay ciidanka booliska kalidood wax ma qaban karaan aqal walbana ma gali karaan oo waaran uma soo goosan karaan meel walbana ma gali karaan laakiin cidii shacbigu hadii ay u sheegtay tiraado waxaan way qabanayaan kulka marka waxaan leenahay waa in shacbiga la shaqeeyno waxaynu ognahay khamrigu inuu ka mid yahay xumaanta kuwa ugu sareeya kuwaas iyo qofka khamriga cabaa uu keenayo dhibaatooyin fara badan waxaynu u baahannahay marka sida boolisku uga howlgaleen in bulshaduna ay u garab istaagto ka maamul ahaanna aanu garab taagannahay waayo haddii amni la waayo wax kale oo horumar ama cibaado oo la qabsan karaa ma jirto waxaan u horseed u yahay in qofku markuu khamriga cabo uu ku dhaco xumaan nooc kasta oo ay leedahay bulshada waxaan ugu baaqaynaa in la garab istaago ciidanku way ku mahadsan yihiin howlgalka ay sameynayaan inay ku soo ururiyaan waxa soo dhamaan bulshada dhibaato ku duulimaad baa la inagu yahay duulimaadkaana waxaan u baahannahay inaan difaaceegi yeelano booliskuna wuxuu diyaar u yahay
inay hawshaa ka hortagaan sidaa imikaba ay u soo qabteen kunka khamriga iyo 110 midiyood iyo sameecadaha tirada ka badan. Abshakuur Maxamed Ali 5TV Boorama.